بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. halkani waa EBC News Now. daawadayaal kusoo dhawaada warka galabta. taariikhdu waa 14 bisha waa maalin axada 2025. warka galabtana waxaa idin daadihin doonaa anigoo ah Mustafa Abdullahi. daawasho wanaagsan. waa tahay daawadayaal kusoo dhawaada warkeena warka galabta. dowladda Puntland ayaa ka hadashay dilkii loo geystay caaqil Cumar Cabdullaahi Cabdi ee duqeynta diyaaradaha droniska loo adeegsaday. warkaas oo faahfaahsan ayaanu idinku warrami doonaa warkeena galabta. daawasho wanaagsan. waa tahay daawadayaal warkaasi oo faahfaahsan. daawasho wanaagsan. dowladda Puntland ayaa iyadu warbixin ka soo saartay. taliyaha booliska Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabkii u dhacay dilkii loo geystay caaqil Cumar Cabdullaahi Cabdi. dilkaasi oo lagu fuliyay diyaaradaha droniska. haddaba booliska Puntland oo faahfaahin ka bixinaya arrintaasi. daawasho wanaagsan. diyaarad la beegsatay 3 gantaal gaariga marxuumka nabadoon Cumar Cabdullaahi Cabdi Ibrahim oo markaas soconayay ama ku jiray safarka wadada dhacdo ka dhacday shalay oo taariikhdu ahayd 13 bishii 9 2025 abaaro labadii iyo barkii gelin dambe dhacdadaas oo ahayd duqeyn ka dhacday deegaanka Jiicanyo oo ka tirsan degmada Ceelbu ee gobolka Sanaag. duqeyntaas oo lala beegsaday nabadoon Cumar Cabdullaahi Cabdi Ibrahim oo kamid ahaa odayaasha gobolka. duqeyntaas oo ay fulisay diyaarad shalay abaaraladii iyo barkii PM galin dambe ayaa dad xoolo dhaqato ah oo ku sugan deegaanka ururiya Jiicanyo ee degmada Ceelbu waxay ciidanka booliska ku soo wargeliyeen in duqeyni ka dhacday ama ka socoto deegaankaas oo ay marto wadada isku xidha degmooyinka Ceelbu iyo Baran. ciidanka boolisku isla markiiba wuxuu u dhaqaaqay sidii uu uga howlgeli lahaa dhacdadaas waxayna tageen goobtii uu ka dhacay falku. sida lagala socday miidiyaha ama la arkayba meeshii waxaan ugu tagnay gaarigii iyo meydkii marxuumka oo burbur weyni gaaray lagana dhigay iskuna hurushaadeen wax gaar ah xubno gaar ah is haysta ama la garan karo inay xubno bini aadan yihiin aanay ku jirin. baaris hordhaxo oo ay sameeyeen ciidanka boolisku oo goobta ilaa goobtii uu ka yimi marxuumku oo ahay degmada Ceelbu abaarakowdii isla markaana uu u socday degmada Baran. waxa la ogaaday inuu marxuumku oo watay gaari noociisu yahay raaf uu ahaa keligii una socday degmada Baran. haddaba duqeyntaas oo ay xaqiijiyeen ama ay arkayeen dad goobjoogayaal ah oo ahaa dadkii deegaanka deganaa oo xoolo dhaqatada ahaa waxay ahayd diyaarad la beegsatay 3 gantaal gaariga marxuumka nabadoon diyaarad la beegsatay 3 gantaal gaariga marxuumka nabadoon Cumar Cabdullaahi Cabdi Ibrahim oo markaas soconayay ama ku jiray safarka wadada dhacdo ka dhacday shalay oo taariikhdu ahayd 13 bishii 9 2025 abaaro labadii iyo barkii gelin dambe dhacdadaas oo ahayd duqeyn ka dhacday deegaanka Jiicanyo oo ka tirsan degmada Ceelbu ee gobolka Sanaag. duqeyntaas oo lala beegsaday nabadoon Cumar Cabdullaahi Cabdi Ibrahim oo kamid ahaa odayaasha gobolka. duqeyntaas oo ay fulisay diyaarad
shalay abaaralaadii iyo barkii PM galin dambe ayaa dad xoolo dhaqata ah oo ku sugan deegaanka urur iyo jiicanyo ee degmada Ceelbu waxay ciidanka booliska ku soo wargeliyeen in duqayni ka dhacday ama ka socoto deegaankaas oo ay marto wadada isku xidha degmooyinka Ceelbu iyo Baran ciidanka boolisku isla markiiba wuxuu u dhaqaaqay sidii uu uga howlgeli lahaa dhacdadaas waxayna tageen goobtii uu ka dhacay falku sida lagala socday meediyaha ama la arkayba meeshii waxaan ugu tagnay gaarigii iyo meydkii marxuumka oo burbur weyni gaaray lagana dhigay iskuna hurushaadeen wax gaara xubno gaara is haysta ama la garan karo inay xubno bini aadan yihiin aanay ku jirin baaris hordhaxo oo ay sameeyeen ciidanka boolisku oo goobta ilaa goobtii uu ka yimi marxuumku oo ahay degmada Ceelbu abaarakowdii isla markaana uu u socday degmada Baran waxa la ogaaday inuu marxuumku oo watay gaari noociisu yahay raaf uu ahaa keligii una socday degmada Baran haddaba duqayntaas oo ay xaqiijiyeen ama ay arkayeen dad goobjoogayaal oo ahaa dadkii deegaanka deganaa oo xoolo dhaqatada ahaa waxay ahayd diyaarad la beegsatay 3 gantaal gaariga marxuumka nabadoon Cumar Cabdilaahi Cabdi Ibraahim oo markaas soconayay ama ku jiray safarka wadada nabadoonku bariyahan wuxuu ku sugnaa degmooyinka Baran iyo Ceelbu iyo Boosaaso oo uu qayb ka ahaa odayaashii ka qayb galay shirkii dawladda iyo gobolka ee lagaga hadlayay horumarinta gobolka Sanaag dawladdu waxay go'aan qaadatay inay samayso baaris qoto dheer hay'adda baarista Forensic Lab-ka iyo xeer ilaalinta ayaa ka bilaabaya saacadahan baaris qoto dheer meeshii uu ka dhacay duqayntu ay ka dhacday waxaynu sugaynaa baarista iyo resultiga ka soo baxa haddii Ilaahay idmo saacadaha soo aadan ama saacadahanba waxa ka bilaabmaya baarista booliska iyo hay'adda Forensic Lab-ka iyo xeer ilaalinta Puntland xafiiska xeer ilaalinta guud waxay ka bilaabi doonaan baaris qoto dheer oo lagu ogaanayo waxa sababay iyo sababta loo dilay marxuumka iyo cidda dishay. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waatahay daawadayaal sidaad wada dhegeysanaysaanba booliska Puntland waxa ay faahfaahin ka bixiyeen qaabkii uu dhintay Caaqil Cumar Cabdilaahi Cabdi iyo sida loo dilay haddaba waxa aan ilaa hadda la garan karin cidda diyaaradahan soo amartay ee amarka soo siisay ilaa hadda lama sheegi karo waxyaalaha cajiibka waxay tahay boolisku waxay leeyihiin dib baaris ayaa lagu sameeyaa dib baaris baan ku wadnaa hawshii investigation baan ku wadnaa investigation ay wadaan warka way hayaan already sababta oo hayaan warka waxay tahay iyaga ayaa dawladda Puntland ayaa xiriir la leh imaaraadka diyaaradahooda iyo Mareykanka diyaaradahooda droneska labada dawladood ee caawiya Puntland ka caawiya argagixisada waa labada dawladood ee isla markaana duqeymaha ka fuliya buraha caalamiska haddaba baaritaanka inta ay sameeyaan inta ay qaadanaysaa maadaama ay og yihiin ba informationka markooda horeba ay og yihiin oo waxyaalaha dadka lagu maran habaabiyo ee dawladuhu ay ku maran habaabiyaan dadka arrintan waxa looga fadhiyaa oo looga baahan yahay dawladda Puntland inay muujiso cidda waxaan ka dambeysay iyo sababta loo dilay ujeedada caaqilku ma wuxuu xiriir la lahaa kooxaha argagixisada waa su'aal meesha taala lama oga Allahu a'lam caaqilku ma si dana gaareed baa lagu fuliyay oo si dil qorsheysan oo gaar ah ayaa lagu fuliyay oo ay ka dambeeyeen dawlado kale iyo maamulo kala duwan lama garan karo balse waxa aynu sugnaaba waa jawaabta baaritaankan hadda ay bilaabeen dawladda Puntland waxa ay ka soo saarto gabagabada baaritaankaasi waa tahay daawadayaal idinka ayaanu idin deenaynaa commentka ku soo qora waxaad u maleynaysaan fikirkiina cidda
ka damayn kartaa dilka caaqilkan qorshaysan maadaama caaqilkani uu ka mid ahaa raggii ka qayb qaatay maamul goboleedkii laga aasaasay magaalada laascaanood ee qaybta weyn uu ka ahaa waa tahay daawadayaal intaana dib u kulmayno waa mustafa cabdullahi idin leh isma dhaafno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu